sheekadii cimri inta da'da aan jiro igu yaabka badnayd ee igu qosolka badnayd ee igu shooga badnayd waxay nagu dhacda annagii nin kala bari gaaraan raacay safar baxa markan dabadna gaarigii raacay gaarigii meel hooyday reer been hooyay guba wayna sooreeyeen meel been fadhiiseen ardaa ka go'an xaafadda ayaan fadhiisan ardaagii markaan fadhiisanay show cilmiga meesha ku jira waxa weeye odaygani 12 caruur dhal 12 ka qub iyo dig iyo dhabi iyo hawada in la isla maro oo dabka la iskula soo noqdo ay kaga dhalo islaanta oo bilaash ba waxa lagu kala cuno iyo qadanay kasto magaraas xisiba wax kala dhanaasto annagoo iska fadhina ayaa show odaygii saanti habeenkii jimcaha bay ahayd isriidam magaraas hawshin si wanaagsan wanaagna kama dhaxeeyo labada qof odiga daan ka sheekay ayuu mid dhanka go'aan oo miina la qaraxday la yiri intaas fuqsan carruurta ku jira oo isla kooxda islaanta la socota kooxda carruurta kala jabsantay lixna odayga la socota lixna islaanta mid inta go'aan oo miina la qaraxdo islaanta la socda ayaa kaalaya dhargeyga ku karsaday dhargiisa ka yaala midhaana jaamac midha qadan baa ku karsatay midha xawa ku karsatay rasuul xawa na xawa maxaa ku geeyay odayguna way doonay in la isqabto dagaal waxaan hayday la isaantii uma dhawaan karay rasuul isaantii soo haadotay keebaa ku karsatayna kayga la kooxdeedii odaygii baa yidhi carka oo dhabi halkaa kala soo booday mid kala car islaanta taabsi car waa la kala jabaysaa islaantuu suray laydhay cabtay isna laydhu ka daba cabaysaa waxay nagu soo beegeen iyagoo hawada isla maraya lixdiina ay lixna dhinac 12 carruur lixna dhinaca ka yaasay lixna dhinaca car islaanta ku dhufaa balodayga la gaadhi lahayaa ku sareysta oo saa loo alayo annaguna haasin hormiya la iskalayo waan si hor yaacno waxa si boortida hadii ay wixii balaayo kala noqotana aasaa ku orod dhameystaan hore u yaacdaan hadii ay reer ka qura tahayna hal debgaraasa ku soo istaagtaan saasar soo dabiic annaguna hor yaacayna waxaan ogaanay reerka aan cid tarixine iyagoo qura yihiin oo iyagoo qura isleynayaan markaasaan ku soo qabanay saasdeedna markaan war kala joogo reerka islaamada oo kala joogo reerka eedna islaanta ugu soo horeysa tii waryaada nimanka islaamada war nagu dhex dhimanna wasla naqaanaa nagu ka dhex dhimanna iyagoo uuraaba isla kaaya dhaafay burka la isla gaaray dhagax hidda labada isla haray ee isla fadhiisanay tinacadkiisa timaha iska rogay iyadoo saa loo koosay yahay foodagii islaantii gaadho intuu la badkaa kala maray oo hawada la qabto dhulka kula soo noqday ay ku qabsaday halka dadabsi soo noqdeen marka odaygu uu islaanta u qabsado kuwa kale way iska noqonayaano macna lixdii islaantii la socotay iyo lixdan kalena waxay doonayaan odaygu inuu islaanta qabsado lixdan islaanta la socotaan inuu qabsami doonayaan laakiin markuu qabsado waxa la arcaa weyn iga badiyo inaga marsh 12 kuwa soo noqdeen saan waariyaan inaga ardayga joogan ugu soo haray maxay ku dhacay warwa saantiyo odaygo aqoon islayna isla laqaan habar baa ugu dhixima gaadheen oo dhaxantaana tuurani burarkaasi qabsan gaadheen wada nimka saantiyo odaygo me way saawshooda wata soo noqon imanayaan qisadii igu yaabka badnay marna maqli inaan kan maxad ku haystaa ay buu iga jiiray baan ku ri waar kaalin xididin ha uu ku yidin warniyo waxaan jiiray ay yarun baan jiiray haye dhaqaaqada soo degaan eegay sawaaba ay yaroota ayna taxismay wadiin jirin dikaas bay ku soo haaday ay ku haystaa gaariga ka jibin gaar macala hal qof aadan warwarsanaya sheegay maxba ku dhamaa lagu waran ninkani ay buu jiiray ay gu jiray caadi mu hayn 12 af oo international ba ku heli jiray soo xal garatay ma aygan waxaan ka keenay Jarmal baan ka keenay London wuxuu soo maray another country baan ka keenay kale soo xal garatay ma eer falay buu soo galay soo xal garatay ma kursi baa loo kiriyay passport buu lahaa ticket baa loo soo jaray eyga intaas soo qarash ku soo baxday ma ey baa kaas waar kaalay waa bashid waa ma qof jireede waraan qof jireey baan jiray hada waan farta luqad ku hadli laga waalaya waar qofka oo international eygu marka adu ma qof islaamayn maalugu saanu haysooniga ma aha aad gaadar dadka dhibaatadaas geystay ma la xiro sharciga ma la horkeeno WhatsApp group ay arrimaanka ka sheekaysanaysan warheedda tamiirkii xagga u aaday arrinkan su'aalkii ma weydiin kartaan sababtoo xaq uma leediin laakiin aniga jawaabteeda haya iyo qof walboo kula mudane laba wiil ay muuqataa mid funaanad buluuga wata iyo mid funaanad cadaan wata keen tooganaya ii sheeg marka halka funaanada buluuga leh
wiilkayga waaye ha tooganin ee halka funaanada cad feero dhow ilaa ku dhasho bas